xaabo cilmi cabdulle waa hooyo Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan xarada qaxootiga Ifo waxayna sheegtay in ay indhaha waxba aysan ka arkin balse bulshada markay arkaan ay u moodaan inay indhaha wax ka arag haddana ma jirto wax caawinaad gargaar ay ka heshay dhammaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga Dadaab hooyadani ayaa dhammaan bulshaweynta meel walba ee caalamka ka joogaan ka codsatay inay soo caawiyaan gargaar bini'aadanimo iyadoona sheegtay haddii ay hesho wax ku filan qarashada in dalka dibadiisa kaalin caafimaad ay u aadi doonto sidoo kale seegeeda ayaa asna la'san qaybo ka mid ah lixdiisa lixaad haddaba waatan xaabo cilmi cabdulle indhahani aad u jeedaan ma ahan kubu wax lagu arko balse waalidiinteeda ayaa u sheegeen iyadoo aad u yar inay indhaha dhaabac ka soo gaareen oo xaabo ayaa inoo sharaxaysa dhibaatadeeda. alxamdulillaah rabbil caalamiin walaalayaal muslimiinta walaalahay magacaygu waa xaabo cilmi cabdulle faarax waxaan ahay hooyo indhala-aantaydina waxaan indhabeelaanoo yar sida waalidta ii sheegay waxaad indhabeeshaal dhacdo 5 sano jira indhala-aantayda anoo alxamdulilah shukr rabbil caalamiin kusoo soco jira wixii aan ahado indhala-aantayda sun kolba muslimiintaas aan intaas yartaa naafada aan dheerahay waagii qaxii Soomaaliya la soo qaxayay ayaa haddana baabuur madaxa iiga dhacay baabuur madaxa iiga dhacay intii la cararayay anagoo dad gacanta ay wadaan ayaa baabuur madaxa iiga dhacay jugtii anoo qaba ayaa waxaan imid xerada Dadaab ee Ifo 2008 ayaa waxaan ka qaatay xerada Ifo kaar qaxooti kaarkii markaan qaatay alxamdulilah qaxootigaas iga noolaay waxaan noqday bukaan socod iska bukaan socod oo dadkiisa iskaga dhex jiray bulshadiisa kili anoo yar iiga dhacday nabar oo inta aan ku soo socdon hadba ka sheegan jiro hadba daawo yar ka qaadan jiray kilidii iyo nabarkii madaxa iiga dhacay iyo madaxa nabarkii hore dhaqaatiirta ay dhahday madaxaada indhala-aantaada waxaa keenay neerfe iyo nafaqa darro iyo indhahaada xididka dambe kala dhinteen waxna hadda wadankan ugama qaban karno dhakhtarka la kulmo oo dhaho ayaana wixii iskala soo socda xanuunkii 2005 intii ka bacday oo soo dhuldhigay waxaan noqday inaan hadba nooc u soo xanuunsado mar wadna garaac ugu keeno mar lixaad kun qaadi way ugu keeno aakhir markii ugu dambeeyay wuxuu gaaray inaan joodariga iyo sariirta ilmuhu inay geeyaan ma aan ka badanaan dhaqaaqi karin oo wax qabsan karin oo dharka xataa bedelkiisu dhibaayo mana aanan helin wax caawiyo oo gacan qabto oo dhakhtar aan ku samray geeyo mana haystay sharci aan wadan ku maro waxaana qof iska qaxootiye iska rifijiya waxaan ka bulshada walaalahay iyo on dhibka u sheegto waxaan ka codsanahay inay waxaan dhakhtar ku tago caafimaadkayga uga samro inay igu caawiyaan waxay heli karaan igu caawiyaan gaajada waxay iga dhib badnaatay caafimaad darro gaajo way jirtaa hooyo iyo aabba cuuriyaameena wada dimadeed iyo aad aragtay indhaha aad arkaydin wax nuura ma laha aad dareemi kartid mugii aad dhasheen waxa uu u baahan yahay iyo dhibaatada la soo kulmi karta ama xoog xumada ama wax qaal la'aanta ama aad dareemi kartid waxa igala sii dhibaato badnaatay caafimaad darrada marka walaalahay dhan walbaba iyo ko eegayo wixii ay ugu caawin karaan inay caawiyaan ama caafimaadka haato ama nolosha haato wixii caawin karo maqalkayga muuqayga yaqaana walaalahay muslimiinta asaasan ka codsanaya عافية عافية الله نصيب xaabo cilmi cabdulle ayaa waxay jawaab ku sugahaysaa dhammaan muslimiinta meel walba ay caalamka ka joogaan maanta wax la bax biri ayay ku anficaysaa xasan cumar xasan kaafi wararka bini'aadanimada xuriya TV xeryaha qaxootiga Dadaab.